الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد walaalayaal waxaan inoo soo jeedinayaa kelmad xuquuqda labada waalid ku saabsan. Walaalayaal, dhammaanteen waan ognahay samafalka waalidka iyo islaamka halkuu kaga yaalo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u dardaarmay dadka oo dhan inay u samafalaan labadooda waalid, wuxuuna arrintan la barbar dhigay cibaadadiisa si uu inoo tuso weynada iyo booska ay islaamka ku leeyihiin. Wuxuuna ina faray Ilaahay inaan u baari noqono labadeena waalid iyo inaan u mahadcelino. Samafalkaasina wuu ka mid yahay u mahadcelinta Allah. Ilaahayna wuxuu quraankiisa ku dhahay واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إلهي عبده حنو يلن وحشيكيا iyo labada waalidna u samafala. Ibnu Cabbaas wuxuu dhahay samafalka waxaa loola jeedaa in baari loo noqdo oo la wanaajiyo oo aan looga jawaab celin hadal adag iyo inaan aad looga fiirsan, sidoo kalena aan codka sare loogu qaadin. Waa in loo noqdo sida addoonka markuu horjoogo sayidkiisa isaga oo dilaysan. Waxaa kale oo Alle dhahay subxaanahu wa tacaala isagoo ka waramaya qaabka loogu ixsaan falayo sidaan labada waalid. Suura Isra aayadda 23 iyo 24. وقضى ربك ربي wuxuu amray ألا تعبدوا in aadan caabudin ilaa إياه isaga mooye وبالوالدين labada waalidna إحسانا loo ixsaan falaa. إما يبلغن hadday gaaraan عندك agtaada الكبر da'weyn أحدهما midkood hadduu gaaro أو كلاهما ama labadoodaba falaa taqul ha ku dhihin labadoodaba uffin uff walaa tanharhumaa ha guulguulin waqul waxaad dhahdaa lahumaa labadoodaba qawlan hadal kariiman ee wanaagsan waqfid raarici u dhibci lahumaa janaaxa dulli u raarici dhinacaada una jilci hadalka min arraxmati naxariista aad u naxariisanayso darteeda waqul ku dheh rabbigay irxamhumaa ugu naxariiso kamaa sidii rabbayaani ay igu soo naxariistaan oo ay igu soo barbaariyeen sagiiran markaan yaraa. Walaalayaal, bal fiiri sida Alle uu ula barbaar dhigay cibaadadiisa iyo samafalka labada waalid, isagoo inoo sheegaya qiimaha Ilaahay agtiisa ay ku leedahay in baari loo noqdo labada waalid. Walaalayaal, waxaan u dardaarmay naftayda iyo tiina inaan u baari noqono labadeena waalid. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.